barnaamijka dhaqo dheefso waa mid lagu horumarinayo kheyraadka xoolaha iyo sidii looga faa'iideysan lahaa ayaa barnaamijkan horey deegaanka looga bilaabay ayaa haatan laga wadaa sidii looga hirgelin lahaa gobollada deegaanka haddaba sidii barnaamijka isbeddel looga keeni lahaa maadaama deegaanka soomaalidu hodan ku yahay kheyraadka kala duwan ee xoolaha qaybna ka ah siyaasadaha u yaala deegaanka ee ah in la xoojiyo tobaha iyo xeeladaha laga midho dhalinayo barnaamijkan iyadoo hogaaminta ku sugnayd magaalada hargele ay goobjoog ka ahayeen soo bandhiga barnaamijkan dhaqo dheefso waxaa haddaba barnaamijkan ahmiyadiisa ka hadlay mudane daahir sheekh cabdi maarayaha wakaaladda dhisidda iyo kobcinta iskaashatooyinka deegaanka barnaamijkaas si la og yahay waa barnaamij aad muhiim u ah innaga ka Soomaali ahaan horaan waxaan dhihi jiray policy maxaa loogu sameyn lahayaa ama siyaasad xoolaha qaabkooda lagu horumarinayo ayaga daryeelkooda iyo qaabkii looga dheefsan lahaa wax soo saarkooda kor loogu qaadi lahaa inta in badan baan ka doodi jiray waan garanaynaa heer national xitaa heer aan dhihi jiray marar badan wasaaradda federaal maxaa loogu sameyn lahayaa oo xoolaha kaliya u gooniya maadaama ay hadda wasaarado kale nabadda iyo beerihii ay hoos tagi jireen horaan taa macnaheedu waxay tahay dareenka bulshadeenu marka xoolaha in wax laga qabto ay muujinaysay bay kamid ahayd oo beeraha kaliya karoobka qaybta beeraha kaliya aan xoog la saarin tii marka hadda inta isbedelku yimid waa la sameeyay oo hadda ayaan dhaweyta xitaa waxa arkayay bangiyada officially loogu dhawaaqay in dadka xoolaha haysta ay deyman ka qaadan doonaan systemku waa laga yaabaa wali inuu practice noqon laakiin deyn la siin karo nin walba inta xoolo uu leeyahay inta la fiiriyo deyn ay ka qaadan karaan bangiyada oo xoolihii ku daryeelayaan oo naftooda ku daryeelayaan waa policy la asixiyay hadda ayaan dhaweyta lagu dhawaaqay heer federaal barnaamijkan kuwii buu kamid yahay federaal ahaan waxa la isla qaatay ama wadankaba in barnaamijkan la sameeyo oo hore beero waan garanaynaa dastuurka meel walba iyo policyga xagga horumarinta maxaa la yiraahdaa cuntada beeraleyda ayaa la dhihi jiray hadda waxa barnaamijkan loo sameeyay xoolo dhaqatadii marka yaa loo sameeyay deegaanada xoolo dhaqatamada aha iyo kuwa kale inta yar haystaba maadaama iyagu ay ku badan yihiin yaa loo sameeyay waa dhaqo oo dheefso cinwaanka inaga aan u bixinay dhaqo oo dheefso way inaga marka mas'uuliyad ahaan bayna saaran marka waxa la yidgareynaya xafiiska xoolihii baa la yidgareynaya mas'uuliyad bayna saaran oo degmooyinkii meelihii laga xulayay qaabkii gudiyada ay u shaqayn lahaayeen arrinta loogu dabagelay waa priority 1 taa inaan dareensiiyaan rabay dadku waa sida loo lahaa dalag iyo daryeel loo lahaa dawladdu waa istiraatiijiyada ay qaadateen number 1 ka kanna waa kamid marka sana waa number 1 istiraatiiji xoolaha iyo lagu horumarinayo dadkan dhanka kale cabdi xasan suufi agaasinka waaxda horumarinta xoolaha ee xafiiska xoolo dhaqatada deegaanka iyo mudane cabdullaahi yuusuf gudoomiyaha gobolka liibaan ayaa taabtay ahmiyadda barnaamijkan uu leeyahay xilligan deegaanka maanta xarunta gobolka Afdheer magaalada Hargeysa waxaa lagu soo bandhigay mashruuci dhaqa oo dheefsa iyadoo lagu soo bandhigay saddexda gobol kasta qoondada uu leeyahay oo aan halkan kula wareegnay qoondadii uu lahaa gobolka liibaan ayaa waxaan geli doonaa sidii aan u dardargelin lahaynay inaan dhisna gudiyadii heer gobol gudiyadii heer degmo gudiyadii heer qabale ilaa nus qabale inaan gudiyada u dhisna oo qaabkii lagu dardargelin lahaa dhaqa oo dheefsa way bulshadeena ugu faa'iideysan lahayd xoolihii sida caanihii geela caanihii lo'da shinnadii rimi gacmeedkii dhammaan qaabkii loogu faa'iideysan lahaa inaan bulshadeena inaan fahansiina si wax soo saarkii xoolaha aad u noqdo mid mustaqbalka nolosha bulshadeena wax ka bedela maadaama inta hore culays la saari jiray dhanka beeraha laakiin hadda dal lahaan iyo deegaan ahaanba maadaama la qaatay dhanka xoolaha in culays la saara oo bulshadii xoolaheedii waxtarkeedii la tuso loogana faa'iideeya sidaa daraadeed waxaan ballan qaadaynaa ka gobol liibaan ahaan in sida ay tahay aan u hirgelin doonno oo nagu soo bixi doonno ilaa halka ugu dambaysana iidan u dhaadhici doonno oo degmooyinka iyo qabilayadan aan ka siin doono taageero buuxa kadib waxaan siinay tababar kooban oo yar oo macnaha say fahan dheeraad uga qaataan barnaamijkan dhaqo dheefso barnaamijkan wuxuu taageersanayaa 5 component caanaha looda in kor loo qaado caanaha geela in kor loo qaado sidoo kale tarminta xoolaha yiida xoolaha in kor loo qaado iyadoo la adeegsanayo barnaamijka rimi gacmeedka barnaamij sidoo kale wuxuu iyana target gareysanayaa wax soo saarka digaaga in kor loo qaado iyadoo marka digaaga in hore la casriyeynayo sidoo kale wuxuu magaran barnaamijkani iyadana kor u qaadaya wax soo saarka malabka iyadoo marka nidaamka dhaqashada casriga ee shinnida kor loo qaadi doono ujeedada ugu weyn barnaamijkan waxa weeyaan in dadku inay helaan damaanad cunto macnaha nafaqo sare leh
sidoo kale inay wax soo saarkii xoolaha ay dhoofiyaan si markaasi lacagta qalaad ee hard currency waddanka uu helo sidoo kale in laga maarmo wax soo saarkii xoolaha la soo dhoofsanay waddanka dibadda laga dhoofsanay in laga maarmo wax soo saarkeena annaga soo saarno aan isticmaalno barnaamijkan wuxuu kaloo muhiim yahay inuu shaqo abuur badan u sameeyo dad badan oo shaqo la'aan ah barnaamijka runtii waa barnaamij muhiim ah kaasoo macnaha wax badan u tari doona bulshada xoolo dhaqatada iyo xoolo dhaqatada beerleyda iyadoo nafaqada ciyaalka iyo dumarka iyo si guud dhaqaalaha waddanka waa kobaca waddanka kor u qaadi doona waana barnaamij muhiim ah marka waxaan rajaynayaa saddexdan gobol masaxaka u daafurnay inay si fiican uga faa'iidaysan doonaan barnaamijkan isku soo waduubo dhaqaale yarida bulshada deegaanka iyo sixir bararka waa mid saameynaya nolosha bulshada ayaa xalka ugu muhiimsan loo arkaa in la xoojiyo ka faa'iidaysiga kheyraadka xoolaha oo salwa nolosha iyo kobaca dhaqaale nololeed ee bulshada.